dabaylo xoogan ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhifteen qaybo ka mid ah magaalada Taleex iyo deegaanada ku heerarsan iyadoo la sheegayo in dabaylahaasi ay khasaaro ay u geysteen dadka deegaankaasi ku dhaqan. wariyayna ku sugan magaalada Taleex Cabdiqani Fantastic ayaa warbixinta warkan halkaasi ka soo diray. abara salaadii maghrib ee xalay ayaa roobab xoogan oo duufaan wata ku dhifteen degmada Taleex ee gobolka Sool iyo inta hoos tagta magaalada Taleex guud ahaanba waxa soo gaaray burbur xoogan oo naf iyo maalba leh. qasaaraha rasmiga ah hadda la xaqiijiyay ayaa ah 4 qof oo dhaawac iyo hal dhimasho halka ay hantidu gaarayso 100 guri iyo 200 oo dukaan. goobaha burburay waxa ka mid ah isbitaalada, iskuulada iyo sidoo kale dhismayaasha qadiimiga ah ee magaalada Taleex. sidoo kale waxa waxyeeloobay guud ahaanba dhirtii ku dhaxtaalay magaalada iyo deegaanka u dhow Taleex. haddaba waxa ka warbixiyay qasaaraha soo gaaray degmada Taleex. uqaasha degmada waxayna baaq u direen dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Muslimka inay la soo gaaraan gurmad degdeg ah dadka reer Taleex. salaan kadib ka bacdi waxa dhacay roob duufaan ah oo dhammaan magaalada ilaa 100 guri dumiyay ilaa 150 sandaqadoodna qaaday. inkastoo nasiib wanaag dad fara badan aanay wax ku noqon haddana dad dhaawaca waa la sheegaya. sida awgeed dadkii wixii agabe u yiilay iyo wixii ay ku noolaan lahaayeenba waxa qaaday duufaankaas qaaday. u sheegaynaa adduunka maamulada iyo hay'adaha iyo adduunka kaleba dadkaasu wuxuu fadhiyaa 150 ka sandaqadood ku noolaa iyo 100 ka guri waxay fadhiyaan gawaan cidla ah. xagga barigu naga yimi roobkaasi dabaylo iyo duufaan ayuu wataa. muddo 2-3 saacadood ayaa roobka dabayshaas iyo duufaankaasi magaalada ku socdeen. khasaarad badan buu geysay. khasaarahaasi aad iyo aad u baaxad weyn yahay. guryaha hadda dumay hadda ishaydo hadda ay soo aragtay ilaa 300 iyo sarif ayaa guryahaasi maraya nooc walba isugu jira. ama meherado ha noqdeen ama guryo caadi ha noqdeen ama haddii maayo kuwa kale ha noqdeen oo lagu shaqaysanayay. bismillahir rahmaanir rahiim. waxaanu ka warbixinaynaa dhibaatadii ka dhacday xalay degmada Taleex. marka waraysa ilaahay baan u mahadnaqaynaa. waxaa dhacay salaami baa ka dhacay xalay 5 iyo 6 barkii markay ahayd duufaan u badan ciid dhagxan baa rogay. guryaha waxaa dhintay geerida nin baa magaalada agteeda ku dhintay. 4 qof waa garaab xagga dadka geerida dhaawac badni waa jira oo jiifa. xoolaha isagoo hadal ma leh. hantida baxday 300 iyo 50 300 waa hubnaa guriga. waxaan u sheegayaa waxaana gaaray haddaanu reer Taleexna wax sahlan baan gaaray. wax ilaahay loogu xamdi naqaana gaaray. ma filay waxa ay wax ku dhowtana inay gaarayaan inaanu noolaano anu uma maleeyay. masaajidada in badan laga hadlay oo laga qaylinay oo umadu ka qaylinayso oo qof walba ka qaylinay waxa soo ku safalahay wala arka waayo dad waxay galabsadeen jirin oo qoriyo isu haysta oo wax alla waxay kala geysteen jirin waan subaxayn oo isu tagayn oo qof baadaha looda leeysa baad doonin oo waxa weeyaan ilaahay wax loogu shukro naqanaga. nafun baa naga bixilay maal waxaan waka. bismillahir rahmaanir rahiim. waad aragtaan meesha aan ku jiray waa halka sandaqad meherada bay ahayd 5 caruur iyo aniga aanu ahayn. magaaladu waxa noo yimi roob duufaana ilaa 60 guri waa dumiyay. waxa weeyaan waad aragtaan dad naga dhiman laakiin khasaare aad u fara badan haday dukaamo ahayd haday guri ahayd bana soo gaaray. marka waxaan ka codsanahay hay'adaha caalamka iyo muslimiinta oo dhan inay hoogi baaba noogu daran waxa la aalay meel aan u hoyna caaw ma hayno waad aragtaan halkaas aan fadhino. marka waxaanu doonaynaa inaad si gurmad degdeg nala soo gaadho. hay'adaha caalamka oo dhan kuwa Yemen kama duwan. waka qaxoontigaas aan nahay wata caruurihii waa kuwa waad aragtaan meeshaan fadhino. dhanka kale waxa waxyeeladu soo gaartay shirkadihii leerarka oo ay dhaceen birihii iyo ballayaashii shirkaduhu
cali diiriye oo ah maamulaha shirkadda golis ee taleex ayaa inoo sheegay inay guud ahaanba magaalada bilaalayr tahay oo ay dhaceen ballayaashii magaaladu isku soo wada duuba masiibadan ayaa tii ugu horeysay ee ku habsata dadka reer taleex haddaba waxaa caawa bannaan jiifa in ka badan 500 oo qoys oo ku sugan degmada taleex cabdiqani maxamed axmed cabdiqani fantastic Kalsan TV taleex